haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah, fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirsan. Sheekadani ma ahan sheekaan igu dhacday, sheekadani waxay ku dhacday ninkan saaxiibkay ah oo magaciisa la yiraahdo Steve. Steve hadda da'diisa waa 32 jir. Steve sheekadan markii ku dhaceysay wuxuu jiray 29 sano. Steve waxa laga xaday mobilkiisa, wuxuuna la'aa mobil uu xaaskiisa kala hadlo una sheego in uu soo daahayo. Steve wuxuu ahaa qof aad u xishood badan, xataa wuxuu ku xishoonayay in uu dadka weydiiyo mobil. Kadib Steve wuxuu go'aansaday isla markiiba inuu bas soo raaco si uu si degdeg ah gurigiisa ugu aado. Kadib Steve wuxuu imaaday boostejadana waxaa taagnaayeen dad badan. Macquulna ma ahan in uu waqti dheer sugo baska. Kadib wuxuu arkay taxi uuna istaajiyay si uu si degdeg ah xaafadiisa u aado. Taxiga uu Steve qabsanayay kaliya waxa saarnaa cunug yar iyo ninka taxi wadayay. Kadib waxaa soo fuuleen laba wiil oo dhalinyaro ah. Taxiga wuxuu ahaa sida baskii oo kale, qof kastana wuxuu ku istaajinayay gurigiisa markii la gaaro. Wiilka yaraa ayaa wuxuu soo dhiibay koolkoolo dhalinyaradii markii ay cabeen waxay u soo dhiibeen koolkooladii Steve. Steve asigana sidoo kale wuu cabay koolkooladii, laakiin iskama badin, wax yar kaliya ayuu cabay. Kadib Steve wuxuu dareemay in ay hurdo soo galayso, xoogaa wuu is adkeeyay. Steve wuxuu arkay labadii cunug ee dhalinyarada ahayd in ay hurdo la dhaceen. Steve asiga wax yar wuu is adkeynayay, inkastoo koolkoolada iska badin. Wuxuu maqlayay laba nin oo isla hadlaysa. Kadib wuxuu arkay daaqada baabuurka ayuu wuxuu ka arkay inay u socdaan beerta doorooyinka. Kadib Steve wuxuu soo naaxay asigoo ku jiro hal hool weyn. Hoolkaas waxaa kula jiray labadii cunug ee dhalinyarada ahayd. Steve indhaha ayuu kala furay. Kadib wuxuu go'aansaday inuu fiiriyo banaanka dadka taagan. Steve intuu banaanka fiirin ka hor ayuu wuxuu isku dayay inuu labada cunug ka kiciyo. Labadii cunug way soo kici waayeen. Wuxuu isku dayay midkood xataa inuu qaado, laakiin wuu qaadi waayay sababtoo ah jirkiisa waxaa ka muuqday daal aad u fara badan. taasina waxa uu keentay koolkooladii uu cabay. Steve markuu banaanka fiiriyay wuxuu ka arkay in ay taagan yihiin 3 nin. Steve wuxuu ogaaday in uusan iska celi karin 3 nin. Kadibna wuxuu go'aansaday in uu meesha kaligiis ka baxsado. Wuxuu arkay qolka meel yar oo ka baqsan, marana ku xiran. Meeshii ayuu Steve ka baxay, wuuna ordayay. Dhulka dhan dhiig ay ahaayeen. Sidoo kalena wuxuu maqlayay codad qayli ah ama dad isla hadlaya oo kale, laakiin waxaas dhig jalaq uma siin. Wuu soo ordayay ilaa uu ka soo gaaro gurigiisa. Steve asigoo daalan ayaa xaaskiisa daaqada ka aragtay. Kadibna way soo xareysay, waxayna geysay sariirtiisa. Steve wuu iska jiiftay. Subaxii markii uu soo kacay ayaa xaaskiisa wuxuu ugu sheekeeyay wax kastoo asiga ku dhacay. Isla markiina wuxuu soo xasuustay labadii cunug oo dhalinyarada meesha ku jirtay. Booliiska ayuuna u wacay, arrinkii oo dhanna uu u sheegay. wuxuuna ku dhahay booliiska labadaas cunug soo badbaadiya. 2 isbuuc kadib Steve wuxuu maqlay iyadoo dhalada laga sheegayo in la helay 2 cunug oo dhalinyaro midkooda oo jarjaran, sanduuqna lagu soo riday. Kadibna magaalada lagu soo tuuray. Steve arrinkaas aad iyo aad ayuu u qaracmay, aad ayuuna u naxay. Fadlan kala dooro labadan sheeko mid cabsida badan. Sheekada labaadna waxay ku dhacday gabar magaceeda la yiraahdo Khadija. Markii ay sheekadan ku dhaceysay aad ayay u yareed, da'deeduna waxay ahayd 7 sano. Khadija waxay jecleed filmaanta horarka ama filmaanta cabsida. Maalin maalmaha ka mid ah waxay israacdeen Khadija iyo aabaheed iyo hooyadeed iyo walaalkeed ka yar. Waxayna go'aansadeen inay aadaan meel si dhab ah la iskaga cabsinayo. Run ahaantii Khadija arrinkaas aad ayay ugu faraxday sababtoo ah waxay jecleed filmaanta cabsida. waxayna rabtay wax si dhab ah uga cabsiyo. Kadib Khadija iyo familkeeda waxay imaadeen dabaqii cabsida.
si wada jir ah ayay isku soo raaceen waxayna soo galeen dabaqii cabsida. Dabaqaasina waxaa yaalo waxyaabo marka aad aragto si dhab ah aad uga cabsanayso. Kadib Khadiija aabeed wuxuu isku dayay qolal ay bahalo ku xariisan yihiin in uu furo, laakiin uu u furmi waayey. wax yar ayay meesha taagnaayeen. Khadiija hal mar ayaa xaada ka sababtoo ah dudkeeda ayay waxay ka dareentay in qof uu xaganayo oo kale. aad ayayna u baqday. kadib Khadiija aabeed iyo hooyadeed ayay fiirisay waxayna ogaatay in ay dud ka taabanayeen aabeed iyo hooyadeed. kadib albaabka miyaaradiisa ayay soo fiirisay, laakiin dad dhammaysan arkin. banaanka ayay waxay ku arkeen inay taagan yihiin dad. kadib banaanka ayay u soo baxeen. nin meesha kala yaqaana ayaa wuxuu u sheegay in qolkan uu ku jiro wax sida hooskii oo kale ah, aanan la ogeyn inuu yahay qof bini'aadan iyo inuu yahay xayawaan. sidoo kalena waxa uu sheegay in albaabkan aanan la ogoleen in ay qof bini'aadan ah furto. kadib ninkii wuxuu tusay sawiro laga qaaday bahalkaas hooska ah. Khadiija iyo faamiligeeda oo dhamne sawiradii way arkeen. Khadiija hal mar ay albaabka miyaaradda ay fiirisay waxayna aragtay wixii hooska la sheegayay. wuxuu lahaa cidiyo dhaadheer, indhihiisana sida tooshkii oo kale ayay u ifaayeen. Khadiija hal mar ayaa hadalkii ku xirmay, iyadoo cabsanaysa ayayna meesha kasoo tagday. kadib markay baabuurka soo raaceen ayay waxay u sheegtay hooyadeed wixii ku dhacay intay meesha joogtay. sidoo kalena Khadiija hooyadeed ayay waxay u sheegtay in dhabarka uu aad u cuncunayo ayna fiiriso waxa dhabarka ugu dhacay. Khadiija hooyadeed markii ay dhabarka fiirisay aad ayay u naxday, waxaana dhahday gabadheedii maxaa kaaga dhacay duudka. waxay dhahday hooyo duudka sawir iga qaad. Khadiija markii ay sawirka aragtay aad iyo aad ayay u naxday, sababtoo ah duudkeeda ayay waxay ku aragtay xagtin aad u dheer sida wax injeestay oo kale. Khadiija iyo faamiligeeda hadalkii ayaa ku xirmay. maalinkaas wixii ka dambeeyayna dabaqaas maysan aadin. fadlan ha hilmaami inaad videoga like gareyso. haddii aad channelka ku cusub tahayna subscribe saar. 내가 포기하고 싶을 때도 나는